niyamana la wariyay wuxuu yiri dad aan rag wadan aan rag balahayn baa ilaahayna keenay buuri aan dad bal wadan aan dad lahayn ayaan imid buuri marka waxa weeye wadan kan isaga ah intii maamulka ahayd iyo intii ganacsiga ahayd dad hore u talaabsatay intii shaqaalaha ahayd muruqmaalka ahaydna maanta xaalkooda ilaahay baa yaqaan marka waxa weeye nimanka odayaasha aan imika warramay hore u talaabsaday raamsigooda alxamdulillah oran mayno xarunta guud ee dalladda ay ku midoobeen ururada shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya Somaliland ayaa waxa kulan cabasho ku qabtay ururka ay ku midoobeen shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya shirkadaha dhiska kuwaas oo cabasho guud ka muujiyay shaqaalaha ajaanibka ee ku soo badanaya Somaliland ee qabanaya shaqooyinka ay xaq u lahaayeen ka muwaadiniin ahaan horta kulli waxay Soomaalidu ku mahmaado waxa kelmadda bihi hadii lagu celceliyo waxay isku bedeshaa Soomaaliland marka dambe buhu marka hadii xaalku san ku sii socdo waxaan malinayaa kolka dambe shaqaaluhu inay gacanta wax la tagaan bay iska noqonaysaa wuxuu yiri cabdiidan isagoo barisan oo kala xaalka shaqaalaha ka hadlaya habartii dusheedii dagaaladii ku noolay daruurku ku hore dadka wada helmoodo doogar raacbaytay malaa talada kuma darin inuu dul abaariyo degmo lagu haraadiyo darxooyin buuxaan inuu dumar dalawgii dibadaha u suuday dib jirkii ku maqan yahay tan yartiya shaqaaluhu daskar u weyn karin waa sad dumare yeelkii waxa weeye marka xaalka shaqaaluhu runtii maanta marka loo eego haddii yoomkii qaadanayaan tahay iyo haddii ay tahay shaqada ay helayaan oo aad u yar iyo haddii ay nolosha kale wasaaradda iyo sixir bararku saameeyay tahayba aad buu culus yahay waana wax aan jecelahay inaanu dareensiino madaxdeennii iyo ganacsatadeenii iyo guud ahaan ciyaantii dalka aanu u qabanay kulan warbaahineedkan oo soo kaaya saaray shaqadii dhismaha iyo guud ahaan shaqaalaha rayidka shaqayn jiray shaqooyinkii ka shaqayn jiray dalka oo ay la wareegeen dad ajnabi inaanu halkan uga dirno baaq hay'adaha qaranka oo si baaxad leh ay u qabsadeen dad ajnabi shaqadaha guud ahaan shaqadii dhismaha waxa la wareegay dad ajnabi oo ka yimid Kenya, Bangladesh, Yemen, Ethiopia iyo wax kale oo lamid ah inaan garanay waxay dalka ku soo galeen iyo wax baahiyo inoo keentana garan mayno xirfadda ay sitaan ay la yimaadeen waddankeena ma aha xirfad ama ka fiican ama ka horumarsan tii dalkeena ka shaqayn jirtay ee shaqaaleen wax ku qaban jiray waxay noogu dhisayaan waa dhoobadii iyo dhagaxii iyo jaajuurkii reer sarsaari jirnay iyo jingadii iyo looxii la isku nusbaarayay ayuunbay ajaanib loo soo waarid dadka muwaadiniintii waxay ka cabanayaan iyagoo shaqadii xirfad u leh in mid kasta oo waddanka in yaroo lacaga ka urursaday uu iska doonto qof ajaaniba dawladdii ku kantarool lahayd ee odhan lahayd sabab muu ku yimidna aanay jirin arrintaasi hadda oo aan maaragtay cidi odhanayn muxuu ku yimid uu kaga xirfad roonaaday kii muwaadinka ahaa marka waxay noqotay dadkii muwaadiniinta ahaa in ay soo garbaduumaan ay soo fadhiistaan dee mar haddii shaqadoodii dad ajaanibi ka shaqaynayaan waxa weeye dee qof hashiisii lagu hormaarayaana dee fadhii maayo waxa weeyaan wuxuu qabtaa waa inuu gacan ka hadlo marka dambe haddii warbixintiisa iyo cabashadiisa hoos loo eegi waayo oo la odhan waayo maxaanu qofkani garanayn qofka muwaadinkii waa inuu yeesho xuquuq ka kaataroosha waayo adduun weynaha way jiraan dad dee mawaaridiina oo taga laakiin markay dadkoodii wada shaqaynayaan ayay iyagu soo dalbadaan dad mawaaridiina meeqaanka uu maanta gaadhay shaqaalaha dhismo weligii muu gaadhin waxa uu gaadhay inuu taangigii biyaha iska bixin kari waayo waxaa dhacday nin farsamo yaqaana oo farsamo yaqaan dhalay oo maanta waxa weeye la yiraahdo abaabtan waxba garanaysaa ajaanibkaas ka weyn ma garanaya to ayaan darada maanta ugu weynaan haysan waa taas waxaan ka cabanayna intaa kadib waxaan leeyahay dawladdu in badan bay ku ololeynaysaa ama madaxweynuhu lahaa muwaadinku shaqada uu qaban karo ajaanib ma qaban karo laakiin nooma muuqato inay dhacday marka aniga hatay waxaan leeyahay waxa la waraaba maama wuxuu yiri maaligaan roorahay reebadii ahayn bisirowga soo dhacday baan u sheegay waxa weeye 2018 yaan BBC-da maalin dhageystay niyamana la wariyay wuxuu yiri dad aan rag wadan aan rag balahayn baa ilaahayna keenay buuri aan dad bal wadan aan dad lahayn ayaan imid buuri marka waxa weeye wadan kan isaga ah intii maamulka ahayd iyo intii ganacsiga ahayd dad hore u talaabsatay intii shaqaalaha ahayd muruqmaalka ahaydna maanta xaalkooda ilaahay baa yaqaan marka waxa weeye nimanka odayaasha aan imika warramay hore u talaabsaday raamsigooda alxamdulillah oran mayno inta wixii aanu ka shaqayn lahayn aanu baranay
een waddanka u baranay bacda dagaaladii horta anigu dee dadka waaban ka yar wada weyn oo kolley hambadii qoladii baan hore intii yarada imika bartayna ajnabi iyo Sri-Lanka iyo Yemen baan naga qaato waa kuwa leeg waddan aan rag balahayn ayaanu nimid marka waxa weeye intii aan wax wada hayna madaxweynuhu ka mid buu ahaa intii aanu arrinka soo wada galay hore taana ku fogaan maayo kolley dee waa la iska wada warhayaa marka waxa weeye raamsigiina nimayo naga horeeya alxamdulillah odhan mayna anagu waxbaan jira hoosna loo soo eego waxaanu ka hadlaynaa xuquuqdii muwaadinka ee muruqmaalka waayo dad ajnabiya oo waxaanu garanayna aan waxbana teknolojiyadda aan naga roorin baa la geliyay cid ma aasaan cid ma qodeeyaan cid ma caawiyaan waxa kaloon ku daraya hablaha Suuriya ka soo qaxay masiibadu way dhacday xijaab ku dulgoogay islaamka sunniga kuwaaba hal caawiyo dalalkaanu jaarkani wixii bilaadanimada lagu caawiyo laakiin muruqmaalkii daaradayada dhexdeelkii repairingkiina aanu isku haysano ayadoo aan waxba la kordhinayn wixii xiray la 2000 wuxuu ku bilaabmay ragii waxaan wada dhisay in la soo muwaarido dadka waxa dhici kara maaha ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka akhriyay qodobo sharci gudoomiyaha guud ee dalladda ururada ay ku midoobeen shaqaalaha rayidka ee Soomaaliland ka howlgala qodobkan si cuskanna waxa weeyaan dastuurka qodobka labaatanaad ee dastuurka dawladdu waxaan doonaynaa iyo baarlamaanadaba inay akhriyaan dastuurka dib loo eego qodobka labaatanaad 3 xaraf baa ku yaala waxa ku yaala kow shaqada waa xuquuq uu leeyahay muwaadin kasta oo gudan kara micnaheedu kol qofka muwaadin yahay shaqadii gudan karo dastuurkaaba ku qasbayba diyaar baan u nahay shaqadii dawladda la siiso laba qodobka labaatanaad isla xarafkiisa saddexaad shaqaaluhu waxay u leeyihiin xuquuq inay mushaharkooda urur ahaan iyo qof ahaanba kala gorgortamaan gorgortankayagan maanta mushaar ma taagna waxaanu taagnahay nolol ahaan baanu taagnahay oo leenahay nolosheedii halagu gorgortamo qodobka afraad ee xarafka afraad ee isla qodobka labaatanaad dawladdu waxay ku dadaalaysaa inay dhexdhexaadi ka abuurto loo shaqeeyaha shaqaalaha iyo loo shaqeeya cabashadeedani maadaama ay tahay shaqo loo shaqeeyaasheedii aanu ka cabanno nooc kastaba ha noqdee haddaynu safgaran weyno dee dawladdu iyo artikalkaa fulinaysa dastuuriga inay dhexdhexaadin noo samayso ayaan u baahnaa inta haddaan kaga baxa halkaa dastuurku sheegayo oo xuquuqdii muwaadinku inay shaqada leeyihiin ay qaban karaan oo dastuurku caddeeyey xeerka number 72 ee 1995 ee ah socdaalka qodobkiisa 24aad ee ogolaanshaha shaqo waxa uu qoray sida qofka ajaanibka ah kama qaban kara dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland hawl jeedadiisu tahay faa'iido doon hadduu shaqo markaa ka qabanayo waa in ay wasaaradda arrimaha guduhu ay ogeysiisaa wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo hay'adda kaleba in shaqadaasi mid muwaadini ka qaban karo sidoo kale xeerka ururada shaqaalaha ee number 31/2020 waxa uu jeedadiisu tahay qodobkiisa afraad in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha rayidka xeerkaasi gebigiisu wuxuu sameeyay in la ilaaliyo xuquuqda shaqaalaha rayidka xuquuqda shaqaalaha rayidka la ilaalinayo kow waxa ka noloshayda shaqaalaha ayaa kow ka oo ah in shaqadii aanu qaban karno ajaanibka laga qabto marka ajaanibka markaa ku soo noqdo in yar ka sheego iyo dheereeyay shaqaalaha ajaanibka wuxuu dalkayga si baaxad leh u maashiyay shaqaalii ajaanibka dalkayga way isku soo tilmaameen dal la helay oo cidna hoos oo lahayn ayaa la ogaaday cadaan iyo madooba waa la soo maashay waxaan ka cadeynana in xukuumad ahaan iyo loo shaqeeyayaashii kaleba ay naga jeclaadeen ajaanib ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed